Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga marna asxaabteyda qaaliga ah kusoo dhawaada YouTube channelka Zakiya Aadam. Waxaa mahad u sugnaatay Alle subxaanahu wa tacaala. Marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhammaan asxaabta ku xiran YouTube channelka. Waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale muuqaal kale oo khayrkiisa wato. Insha Allah maanta waxaan leenahay martiqaad. Marka koowaad waxaan jarjaranaynaa ama aan diyaarsanaynaa baradhadii. Gacanta waxaan ku hayaa ujeediin waa afka sakiin uu ka yahay. Baradhada sida ujeediina ugu jarjaranaynaa wuxuu noqonayaa baradhada labada dhinac waxay ka noqonaysaa sakiin. Hadhow markii la duubo ama baradhada la shiilo si qurux badan ay ku soo baxaysaa. Marka subaxii hore shaqada intaan galin baradhada iska diyaariyay meelaan dhigtay si hadhow aanan ugu weynin firaaqo ama jaanis aan ku jarjarto. Qaabkaas ugu jarjaraysaa ayada dhan haddii Ilaahay idmo. Hadhowna qurux uu ku soo baxayaa in suuqa bakaaraha anoo iska maraya arkay. Saas darteeda ku soo gatay. Qofkii jecel waxaa laga yaabaa meelaha in laga helo oo alaabaha. Sidoo kale inta subaxii hore waxaa iska diyaarinaya cabitaanka. Cabitaankan waa cabitaan qaas ah oo waxba aan kaaga baahnayn hadhow markii martiqaad aad qabtid oo kaleente inaad sameysato qudaar ama miro inaad sameysato sida babaay iyo cambe inaad jeestid makaarabo. Asagaa wixiisa dhan iswato ma fahanteen. Koodii waxaa ku soo ritay qare ayay ahayd hal qaado oo qare ah. Waxaa kaloo ku soo ritay cambe oo hal qaado ah isagana. Waxaan kaloo ku soo ridanayaa cananaas. Cananaaska gasaca ku imaado waa taqaaniin. Laga yaabo in aragteen ama inaad arkin macquul. Gasacaas ku jira laba qaab ku imaada. Isagoo wareeg ah oo dhaxda ka daloolo iyo isagoo jarjaran. Jarjarkaana marka waxaa sameynayaa hal qaadaan soo qaadana. Waxaan ku shubanayaa galaaskii ama weelkii wax lagu cabi lahaa. Waxaa la dhahaa cabitaankan noocan ah mixi fruit loo yaqaana. Mixi fruit la dhahaa fruits isku darsan waaye. Sidoo kale waxaa ujeediin cananaaska oo baaquli igu jiro, cambe, tufaax 3 nooc oo la soo jarjaray iyo qare. Haddana waxaan sameynayaa intaan isku soo shiidayaa qalaadada isugu soo shiidayaa. Aniga subaxii hore shiidanaya cabitaanka biyo qabow ama baraf waxwana ma ku daraayay. Waxaan sameynayaa firiijka gelinayaa ilaa iyo xilliga qadada la gaarayo uu igu jiraaya. Saas darteeda u hormarinayaa cabitaanka. Badanaa ma jecli cabitaanka biyo qabow waxaas inaan ku shiitani. Waa shiidaa firiijka iska geliya si uu u qaboobo. Haddana sidaas si la mid ah yeelanaynaa. Waxyaabaha kale aan ku soo darsanayna waxaa ka mid ah waa idin sheegay kan waxaa waaye 3 xabo oo tufaax ah. 3 nooc oo tufaax oo kala duwan. Tufaaxa cagaarka ah, tufaaxa guduudka ah iyo tufaaxa oo jaalaha ah aan soo jarjartay. Waxaa kaloo cabitaanka ku darsanayaa strawberry flavor Nesquik. Waxaa waaye budada strawberry-ga, carafta strawberry-ga. Af Soomaali maxaa lagu dhahaa faroole miya wax camal lagu dhahaa. Commentigana wuu soo qor af Soomaaligiisa kuley isas in la dhahan jeclahay aniga. Sharaabkan cananaaska ama cananaaskan ku dhex jira meesha biyuu wataa. Biyihiisa waxaa si gooni ugu soo shubtay koob. Waxaa rabaa markaan shiidanayo inaan ku darsado cabitaanka. Sidoo kale inta caano boora ku shiidanaynaa. Mixi fruit la dhahaa. Kaligiis sidaa isticmaashida kugu filan. Waa soo shiidana marka hadda. Waxaan sameynaynaa koobabkii noogu diyaarsan mirihii ama fruitiskii. Cabitaankii haddana aan soo shiidanay aan ku shubanaynaa. Mid walba saasaan sokorna waa idinka ilaaway. Sokorna waa ku darsanay. Waa ku shiidanay. Haddaad jeclaan sokor malab ku darso. Ama hadii kale inta miraha kugu filan macaankoodan kala jeeda cafan. Marka hal koob ii dhiman halkaas koobna waxaan sameynayaa malab ku soo shiidaa. Martiqaadkeena sidoo kale waxaa noogu jiro kalaankal. Arabna inaan sameysano saliida soo kululeysanay hilibkii oo aan si dhexdhexaad u soo jarjaranay saliidii ku soo shubanaynaa. Xoogaa geeso iga dhigay digsiga markuu kulul yahay wax hadii ku dhigan ciyooma laga fuji karo maahano. Markuu bislaado saad dan u soo dhacay dib malahan. Meel jircaan aan ka soo jartay hilibka ulba geel waa adag yahay maahano. Haddana meel adag ka soo jaratid biseelkiisa dhibay waqtiga kugu noqonay. Waxaa ku soo darsaday cusbo qiyaas ah. Waxaan sameynaa markaas cusbadii iyo saliidii iyo waxa isku labayaa hilibkii. Kuley qof walba sida loo kariyo inuu yaqaan macquul. Dadka qaarkood dhagtay inay ka maqleen macquul. Marka ani qaabka aan u karsado aan isla arkeena. Kalaankal hilibka la sameeyo waxa uu jeclahay hilib geel markii la yaa. Inta kale inta arigaan ka helaa. Wax yar ayaan ka maqnaayay kaamirada.
waxaan sugayaa hilibka intuu biyo ka dhalaayo. Kalaakalka markaan samaysanayo waxaan jeclahay ama hilib noocu doona haba ahaadaba basal inaan ku dhex daro. Basashaas hadhow way dhalaalaysaa ama way milmaysaa cafwan. Way milmay way baaba'e waxay ku noqonaysaa dheecaan aad iyo aad u macaan badan. Adiga haddaad ka helin ha samaysanin, haddaad hore u samaysaninna baroobey. Waxaa kaloo kusoo darsanaya liin dhanaan jeex ah in miraha ama iniinta yaryarta gacanta inaad ku qabtaan ka bixinaya haddii kaaga dhexdhacdo waxaa waa dhow qaraar inay noqotaa macquul ah. Marka gacanta isaga celi ama haddii kale inta gooni u soo miiro kadib caadi ugu darso ayay ku jirtaa. Liin dhanaanta marka waxay sameynaysaa wax walbo aad ku dartid iyo yacni inay bislaato. haddana aan digsiga isticmaalayo yacni ma ahan digsi daboolkiisa dalool leh ama meel uu ka neefsado leh. Taasa waxay iga saacidaysaa hilibka inuu ciyo iyo bislaado. Digsiyada hilibka loogu talagalay in lagu kariyo dalool dhan ma lahan ciyo ku bislaanaya. Marka ama digsiga dalool halahaada ama yuusan lahaanin liin dhanaantaas xoogaa waxay ka saaciday hilibka inuu waqti badan ku saarnaado. Biyihiisi markuu soo dhameystay waxaan kusoo darsanaynaa bakeeriga shaaha oo buuxo oo biyo kuleel ah. Qandac caadi oo iska yaa biyaha zaa'idna ma u kululo. Marka waa daboolinaa waxaa sugeynaa intii yacni uu biyahan kala ka dham. Intaan daboolin ka hor yani idinka ilaawin waxaa ku darsanaynaa in filfil yar oo aan saas u badnayn. Xoogaa dhadhan isaga yeeshaa cuntada filfisha. Midishiidana daahitid isku darso iyadoo yacni kuuskuusan caadi haddii guriga kuu taalo soo qaado tumo ama shiido. Waxaa kaloo ku darsanaynaa wax yar oo huruud ah huruudda cuntada lagu daro turmeric in la dhahay iyadana waa u jeedin caageeda. Haddaad haysanin muhiim ma ahan qasab ma ahan cusbadaada iyo hilibkaaga kaa badan fahantiin. Haddaa haysatidna waaba haysataabo. Markaas ku qasban hadhihin qofkaan waxaanu ku daray anna waxaan ma haystii waxaan ma sameyn karaa hadhihin. Naftaada dhiirigeliyaa mar walbo. Wax aad sameyn karin ma lahan. In hadda waa daboolena marka waxaan sugeynaa ilaa inta biyahan kale ay ka dhamaanayaan ayagan insha Allah. Sidoo kale martiqaadkeena waxaa ku jiro baasta macaroni in isku karis qof walbo wuu yaqaanaa laakiin waxaa rabaa qofkaan aqoon inuu kasii faa'iideysto. Qofkii yaqaan wuuba yaqaanaa. Saliid iyo basal ayaan isku soo daray marka koowaad. Saliid basash intay xoogaa yar ka gaduudanaysaa sugeynaa. Danta waxay ku qasbaysaa muuqaalka inaad jarjaro sababtoo ah haddaad muuqaalku sidiisa soo fasaxaya adinkana waa igu caajisaysiin anigana duubistii iyo maxay ahayd martiqaadkii diyaarintii iga badanaysa fahantiin oo iga kala badan yihiin macnaha. Marka basashan intay ka soo gaduudanayso basashii way noo soo gaduudatay waxaan ku soo darsanaynaa shiishiid kuley isku karis hadii lagu dhaw waa iska fahmaysaa howl fududeys leh waa mahano best macaroni isku karis waxaa waaye basashaada shiilo xoogaa markay ku gaduudato waxaa ku soo darsataa shiishiidkaaga xoogaa yar le iskaga hay dabka 2 bac ku soo darsanaynaa marka in xoogaa bast macaroni-deedu wax yar way badan tahay waxaan rabaa inay midabkeedu uu guduud iyo noqdo fahantiin. Marka waxaan sameynayaa xoogaa yar dabka ku heenayaa shiishiidka intuu iska dhex galaayo iska dhex milmaayo. Waa ogaa wuu diyaarsan yahay shiishiidka laakiin anaa jecel inaan iska bislaayo xoogaa kaleento yar. Hadda jeceshaa waxaaga dhan hal mar waxaan ku soo darsanayaa marka si xoogaa yar oo iigu bislaado in biyo kulul ah meel iigu diyaarsan. Biyahaas yarkaa ku soo darsanayaa xoogaa waxaa rabaa shiishiid inay isu kee dhex gasho. Haddii degdegsantaa adiga saan ha sameynin mushkil ma lahan. Biyahan markii xoogaa yarko ay ka dhamaadaan oo shiishiidkii xoogaa bislo ii soo haro markaas waxaan sameynayaa baastadii iyo wixii kale oo ku soo darsan lahaa aan ku soo darsanayaa. Waa kana baastada had ku soo darsanayaa shiishiidii xoogaa yar biyihii wuu ka sii dhamaaday. Waxaan sameynayaa marka baastada nus kiilo waa waxaan karsanayo. Waxaan isku labayaa baastadii iyo shiishiidkii cabaara isku labeynaa si ay isku dhex galaan. Wax sidii oo bariiskii oo kaleente la shiilaayo ama la qaleynayo ma aha. Qalees waa taqaanin mahano bariiska markii la shiilaayo camal oo qudaartii wixii lagu shiilaayo saasoo kaleenta ma aha. Marka xoogaa yar isku dhex labaysaa. Markaa isku soo dhex labnay saasoo ku soo baxay. Waxaan ku darsanaynaa marka in baradho baradho oo aan si kuuskuusan xoogaa u soo jarjaray ayaa ku darsanaynaa maadaama oo suugo gooni ah uusan lahayn waxaa waaye isku bixisaa lahaa
baradhadana kusoo labanayna iyadana. Waxaa sidoo kale kusoo darsanaynaa cusbo. qiyaas ahaan waxa adiga aad karsanaysa adiga taqaanid. Ani waxaa isticmaalayaa cusbada shiidan ama cusbada khudaarta iyo waxaas loogu talagalay waana ku sawiran. midaad doontid isticmaal adiga. mid walba waxaan jeclahay macnaha shay walba markaa kusoo daro inaa kuudi labo shayga markuu uu dhexgalo cunadii ama wixii haddana shayga kale aa kusoo daro inaa la yaabtaana macquul waa dhahdaan qoftaan maxay tahay maadba wax noogu soo dareyso. kadib waa ujeediin si fiican isku dhex gelinay baradhadii iyo baastadii biyo meel yaalo oo kululaay aa kusoo shubanayaa. baasta makaroonida isku karis markay tahay biyo saas u badan ma qaadi karto sida bariiska oo kaleente biyo badan in lagu daro ma laqi karto. marka biyo xoogaa dhexdhexaad ah oo iyadana ay kugu bislaanayso aysanna baastada kaaga noqonaynin mid jilcan oo bajaq ah aa kusoo darsanaysaa qiyaas ah. ani biyihii ay igu yaraaday biyo kale aan doonanayaa macnaha meel ay igu diyaarsan yihiin waa soo qaadanayaa. mar walbana waxaa ku dadaashaa cunada inaad ku darsatid biyo kulul tarmuus ama shay kale ku diyaarso si tartiib hadhow cuntadii kulul biyo qabow inaad ku shubto si kaaga qaboobin. intaasay nagu egtaa. waxaa kusoo laabanay kalaankalkii basasha xoogaa ujeednaa waa jilcisadeeda hore ma ahan marba marka kasii dambeys way sii milmaysaa. hal mara waxaan waa idinka maqnaa maana duubin hal biyaa ku daray biyihii hore aa ogeedeen maahane biyo kalaa ku daray way sii dhammaanayaan. waxaa ku darayaa haddana haaf kaleente bakeeri haafkiisa oo biyihii kuleelka ahaa aan mar kale ku darayaa waa daboolayaa. digsi aanan daboolkiisa feedneyn ama qam ah haddii aa haysato aaday kuugu fiican tahay. haddana waa kusoo shubanay waa labaynaa wax kaloo nooga dhima ma lahan. markaan hadduu biyaha dhammaysto waa la dejinayaa lee bes wax kale noogama dhinno. liinna waa ku darsannay bes waa noo dhammaatee. waxaan kusoo laabanay iyadana baastadii oo biyihii kasii dhammaadeen oo xoogaa yar ku dambeeyaan. waxaan soo qaatay 2 xabo oo ukun ah. waxaan kusoo darsaday filfil yar ma aanan duubin intaas filfil yaraan kusoo daray iyo cusbo aad iyo aad u yar. waxaan rabaa marka inaan si fiican u garaaco fargeetaa soo qaatay. fargeetada aad iyo aad u garaacdaa ama ay Soomaaliga iga dhumo cafoon si fiican ugu soo labay. marka waxaan sameynayaa korka tartiib ugu wareejinayaa. waxaan rabaa inaan ku dhex labo si ay hadhow ugu noqoto booska hilibka ay ugu gasho maadaama aan hilib gooni ah aad cuneynin. waxaa uga faa'iideynayaa macnaha qofkii aanan hilib ku darsaneynin oo kaleente. hilibku waa borotiin soo maaha booska hilibkay ku galaysaa waqti badanna ma kaa qaadanayso. ayadoo dhan waxaa laga yaabaa isku dardar 15 daqiiqo meelahaas inay kuugu bislaato. saana isugu labayna iyadana wax dambe noogama dhinno dejis waaye ma fahmino waa la dejinayaa waa u dhammaatay khalaas macnaha. ugu dambeyntii waxaa kusoo laabanay hilibkii uu biyaha noo dhammaystay soo kusoo baxay waa ujeediin. waxaa jeclaa dhiinkaas yarkaan ujeediin dheecaankaas dheecaan maahan ee waxaa waaye basashii oo milantay 2 xabo basal oo dhexdhexaada kusoo darsan waa ka dejisanaynaa dabka waana waa u dhammaatay. waa kana martiqaadkeeni saanaa kusoo diyaarsanay asxaab qaali la martiqaadayay. waxyaabaha kale oo meesha ku jiro waxaa waaye oo timirta kor ka saaran tahay labaniyad cabitaankeeni waa kaasaa ansalaatadii qajaarkeeni hilibkii mooskii iyo liintii gooni ugu diyaarsan tahay. sheeg ma u baahna ujeedin mahano wax kale oo meesha ku jiro aan soo duubin bariiska sida loo kariyo baradhadina waa taasaa muuqaalkeeda ujeedin iyo sidoo kale malaayi waa kana asagana ma aana soo duubin. haddaa ka hesheen waa kaasaa subscribe soo saara insha Allah like iyo share iyo comment aan isla dadaalno sanadka inta ka dhiman waan idinka rajeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.